dadaa sidoo kale waxay dhaca catooshtum iyo 6 jir waa xiliga dhashtaxa ka ogta 6 iyo 10 inaa jir yaa ku shay dadaa waxay leeyihiin qoftaana 25 jirto asitum iyo 6 jir waaye sawirkan inta arooskay socda asaa uu la yaab ka badnaa anoo xanaaqsanaa leega qaad macnaa dadka dhan waa i wareejino walaalayaal oo iga qalee qof bina aadan wuu xanaaqa sawir asoo xanaaqsa hadii laga qaaday ira carbeed camal ma inaa wareejisi waa dambaajiyeen horta dadaa sidoo kale waxay dhaca catooshtum iyo 6 jir waa xiliga dhashtaxa ka ogta 6 iyo 10 inaa jir yaa ku shay hornimayo waa hurdoosin horta mase waxaa isleeyahay ninka waxa uu gaawan yahay waa yari xogaa gaabnidaada iyo imaanay horta ani marka da'deeda ka la 21 sano jira dadaa waxay leeyihiin qoftaana 25 jirto asitum iyo 6 jir waaye horniyo ani garaa ii soo bixiro adantum iyo 6 jir garmo u soo baxa xirfadaha leedahay bal iga waran 6 jir naag ma haminaabe ya waxbarasho ku mashquulsan marka xirfadaha aan leeyahay waxaa ka mid ah reporter ciyaaraha tabiya sidoo kale waxaa ka mid ah majaajilo makaaniko maanta aniga waxaan arkaa ka shaqaysanaa ma fahanti qof bina aadan ani wiligeyna waa ahaa yaraanteydaan ku soo baxay inaa aniga horta aan noqdo nin asaga wax qabsado asaga wax la weydiisto horta inta adii wax aad dad weydileed adiga lagu weydi taas waa jeclaa meesha meelka dheerna waa taga mustaqbalkana waa arki doonta aniga xildhibaan iyo wasiir ah hadda ka horaa waxaa dhaa musharax xildhibaan noqonaa ninaa wuxuu dhaadaa ada xildhibaan wadankan ka baxa xildhibaannimadeeda asimaan ka barya wadankan ka baxa asimaan ka barya catoosho bal marka la yiraahdo dhinaca shacabka markaad ku dhex jirtid oo aad wax tabinaysan sheekooyinka mararka qaarkood kaliya intaad fadhiisatid asla ku soo sheeg maxaa niyo soo xasuusatid oo aad kaliya le aad mararka qaarkood falanqaysid aniga commentiga ku quslaa haween waa lee masaajeenay qoftaan commentiga waa loo soo diraa haweenka la isbuuca damba arooska waxaa lahay ninkan dushiisa ma fiiris booga ku taal ma ka fiicna sawir waxaa lay soo diray qof duudkiis dhan oo geedka towinta gubtay aa lay soo diray macnaha isagoo oo jeefo dhabarkiisa kii kale uu ku yaalo meeshii oo bahashi mayo sawir qof kale oo nin cadaan oo geedka towinta korontada ku gubtaa lay soo diray عطش توينت ما كفي عنا ذا ليداي صح توينت كل ما قلت مرقة هذه way isoo inta wacday ma baad ninkan wadud cataa kan wadud cadiya mo صح عيسام حاوين أنا iyo dhaw qoslaal soo qoslaal marka midkood waxa kala yaab oo ku arkay waa la soo caynaa commentiga caatintooba ku qoslaa ma xanaaqay ninkan qosal looba ka qaadaa dadkaas caynaya aflagaadeynaya waa la yaabanaa dhibaatana ma qosal si waa qoslaale waa lagu caynaa caawa waa lagu caynaa galabta biri galabada beerta banaadir tagtidna sawir ila galaa sheekooyinka ana waa lagu caynaa lagu aflagaadeynaa birin waxa lagu leeyahay atoosh kala sawir la galaa baba dhibaatooyinka ku aragtay social media saas waa way atoosh aad u maasan tahay waqtigaaga qaaliga ee aad nasiibsay oo kaaga maadnaqaynaa inaan maaragtay farxadda iyo muxuu ahaa qalaacuudsigu uusan ahayn kaliya marka la guulaysto ama natiijada ugu dambaysa la gaaro isbedel weyn ayaa ku dhacay lolankii adkaa ee la saadaalinayay kursiga tirsigiisu yahay hoob 69 ee deegaan doorshiisu tahay magaalada Gaalkacyo Galmudug kursigan waxaa ku fadhiya waliba mar kale u taagan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka ku ahaa nidaamka farmaajo 5 sano ee la soo dhaafay toddobaadkii ugu dambeeyay waxaa soo shacab baxay damaca musharaxiin isu soo taagay tartanka hoob 69 oo aad u muujinayay in isbedel lagu sameeyo matalaadda kursigaas oo lalahooda ayna ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo
cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ayaa soo bandhigay damaciisa kursigaas musharaxnimada alcadaala ayaa la aaminsan yahay inay xiise u yeeshay tartanka loogu jiro kursiga golaha shacabka ee uu ku fadhiyo cabdiraxmaan odawaa hase ahaatee maalin ka hor waqtigii loo ballamay qabashada doorashada kursigaas waxaa isbedel ku yimid damacii cabdiraxmaan alcadaala waxaana qoraal ugu daabacay bartiisa Facebook uu ku shaaciyey inuu ka tanasulay musharaxnimada kursiga hoob 69 isagoo qoraalka si hordhaca ugu hambaliyay cabdiraxmaan odawaa oo marka la u sharaxan kursiga uu ku fadhiyo waxaan halkan uga hambaliyeenayaa adeerkay cabdiraxmaan maxamed xuseen oo noqonaya xildhibaanka imatali doona 4 sano ee soo socota insha Allah waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saaxiibada muddada ka badan 2 sano igala shaqeynaya ololahayga waxaan kale oo u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaashayda kala duwan oo aan leeyahay waad mahadsantihiin halkanku wuu soconayaa insha Allah dhammaanteen waan guuleysanay gacmaha ayaan isqabsanaynaa horay ayaan u soconaynaa insha Allah ayuu yiri cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala wasiirka xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka oo ka tanasulay tartanka hoob 69 inta kadib waxa magaalada Gaalkacyo ku kulmay alcadaala iyo odawaa dhankiisa waxa uu ka mahadceliyay tanasulka alcadaala oo loo arkayay mid kamid ah musharaxiintii ugu saameynta badnaa loolanka hoob 69 dhinaca kale dib u dhac ayaa ku yimid doorashada 3 kursi oo sabtidii maanta la filayay in lagu qabto magaalada Gaalkacyo 3 kursi ayaa kala ahaa hoob 95 hoob 69 iyo hoob 38 guddiga doorashada ee Galmudug ayaa soo saaray habraaca doorashada kuraastaas waxaana shaxda la soo bandhigay ay muujinaysaa in tirada odayaasha dhaqanka isbedel uu ku yimid ee ku xusan soo xulista ergada marka la eego hoob 95 waxaa ku xusan odayaal dhaqan oo gaaraya 6 oday kuraasta kalena marka la eego hoob 69 iyo hoob 38na waxaa ku xusan odayaal dhaqan oo gaaraya min 4 oday 13 bishan oo ku beegan maalinta Axadda ayaa loo madlan yahay doorashada 3 kursi oo taala magaalada Gaalkacyo ee maamulkaasi Galmudug